حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود madaxweynihii sideedaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa loogu yeeraa aabihii dimuqraadiyadda caawa markaan imiday waxa la ii sheegay walaalo Soomaaliyeed oo imaatinkayga aan aad ugu faraxsanayn inay jiraan aad aan anigu ugu faraxsanahay haddii aan iskhilaafno ama kala ra'yi duwanaano haddaan tabeelayaal qaadanayno ee aanan qora ka qaadanayn horumar aan gaarnay waaye runtii ayaguna inay sidaas yeeleen aniga waa ku qadarina runtii wax xumaataa iyo muxuu ahay aan u qabo ma jiro ha layga gaarsiiyo fariin waa saaxiibaday waxa ay tabanayaan inaan kala hadalnaan diyaar u nahay oo aan ka qancinno oo haddii aan ka gardarannahay weliba aan intaan ka garaawno aan raalli ahaada dhahnaan diyaar u nahay waxaa intaas u dheer oo lagu xasuustaa hogaamintiisii marxaladaha kala duwan ee dalku soo maray haddaba muuqaalkan waxaan ku soo bandhigaynaa waxqabadkii dawladdiisa sanadkii 2012 ayaa madaxweyne loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu xilka kala wareegay Shariif Sheekh Axmed xilligaasi ma jirin hay'ado lagu wareejiyay ama dhismayaal aan ka ahayn xarunta madaxtooyada xogaha ciidamo ah buugga dastuurka qaranka Soomaaliya balse waxa lagu wareejiyay dawlad ka soo baxday kumeel gaar midaasi oo ay dad badan u arkayeen inuu haystay fursad ka wanaagsan midii ay haysteen madaxweynayaashii isaga kaga horreeyay xafiiska waxyaabihii uu asaaskooda lahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka mid ah habeynta iyo isku dheelitirka nidaamka maaliyadeed ee dalka waxayna xukuumaddiisu ku guuleysatay in burburkii kadib markii ugu horreysay ansixiyaan miisaaniyad 3 bilood ah taas oo golaha wasiiradu ay si wada jir ah u meelmariyeen waxaa kordhay dakhliga soo gala dawladda waxaana bilaabmay bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyadoo markii ugu horreysay shaqaalaha dawladda loo kala sameeyay darajooyin kala duwan tusaale halka markii hore isku mushaar ahaayeen wiilka haysta shahaadada labaad ee jaamacadda iyo midka aan haysan shahaadada dugsiga sare waxa uu amray in la sameeyo guddi ka kooban qaybaha bulshada kaas oo imtixaano shakhsiyaadka soo dalbada shaqada dawladda bixinta iyo kala sareynta mushaarka ayaa lagu xiray hadba qofka intii aqoontiisu ay leeg tahay tusaale qofka haysta shahaadada koowaad ee jaamacadda waxaa la siiyay darajada A mushaarkiisana waxa uu noqday $700 oo dollarka Mareykanka ah qofka haysta shahaadada dugsiga sare waxa la siiyay darajada B mushaarkiisana waxa uu noqday $400 oo dollar halka qofka leh xirfad la siiyay darajada A waxaana mushaarkiisu noqday inta u dhaxaysa $300 ilaa $200 oo dollar waxaa sidoo kale dheelitir uu ku sameeyay nidaamka mushaarsiinta ciidamada isagoo ku saleeyay darajada iyo kala sareynta ciidamada halka markii hore generaalka ciidamada iyo askarigu isku mushaar ahaayeen dhismihii dawlad goboleedyada shanta dawlad goboleed ee dalka ka jira afar ka mid ah isaga ayaa dhidabada u aasay maamulada dhismahoodu qayb weyn ka qaatay waxaa ka mid ahaa Jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle Xasan Sheekh wuxuu ahaa nin oo hayin ah oo dadka Soomaaliyeed beledweyne kaliya 5 mar ugaas gadooday ugu tagay uu samareeb u tagay baydhaba iyadoo lagu gubay tagay kismaayo tagay tanaasul hayinu ahay Xasan Sheekh waxa uu horumarin iyo dayactir ku sameeyay ilaha dhaqaale ee ilaa hadda dawladda Soomaaliya ay ka soo galaan dakhliga ugu badan sida dekedda Muqdisho garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waaxda dakhli ururinta ee dawladda hoose ee Xamar iyo goobo kale intuu xafiiska joogay madaxweyne Xasan Sheekh waxa la hirgeliyay mashaariic kala duwan gaar ahaan dhismaha xarumo muhiim waxaa ka mid ah dhismaha iyo dib u dayactirka garoonka ciyaaraha ee Engineer Yariso dhismaha iyo hirgelinta jaamacadda ummadda dhismaha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho hirgelinta isbitaalka weyn ee Erdogan dhismaha iyo dib u habeynta dekedda Muqdisho dhismayaasha xerooyin ciidan dhismaha xarunta bangiga dhexe ee dalka dhismaha hoyga xarunta dawladda hoose ee Muqdisho iyo xarumo kale ilaalinta xuduudaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud waxa lagu xasuustaa dadaalkii uu ku bixiyay dacwadii badda ee ku saabsanayd murankii u dhaxeeyay dawladaha Soomaaliya iyo Kenya waxa uu sidoo kale dacwadaas u soo xushay qareeno caalami ah oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib isagoo diyaariyay sahayda iyo qarashka ku baxaya inta dacwadda socoto waxa uu sidoo kale magacaabay guddi ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada kaas oo korjoogteen ku sameeyay habka ay u socoto dacwada badda Soomaaliya ugu dambeyntii Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu xilka wareejiyay isagoo aan qalqal gelin doorashada dalka horaantii sanadkii 2016 ayuu dhisay madashii ay ku midisnaayeen dhammaan madaxda dawlad goboleedyada
ra'iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka waxaana halkaasi lagu go'aamiyey waqtiga kala guurka habraaca doorashada iyadoo la dhowrayo ahmiyadda federaalka. waxa uu xasan sheekh hormuud ka ahaa yagleeyadii matalaadii dowlad goboleedyada waxaana halkaasi ku dhismay aqalka sare oo ilaa haatan ka mid ah labada aqal ee dalka.